وحاد ياد لوغ حماضو يا شلي يدراد بو دعي وح قرصونا ما أهين وح لموغي هينا ما أهين سيدي كبلودين يسي أهايين يوحي دلالة لسو مرينا قف كستأر ريكون فرق البيضة وأوغا waxaan isku daynay inaan ka baaqsano muddo hal sano ah yaan baxnaaninaynay aqli baa imaan doono oday waa ka noogay akhyaar waa ka noogtay siyaasi waa ka noogay madaxdii ugu sarreysay dalkaata waa ka noogtay ajandaha odayaal dhaqan waa ka noogeen ujeedada nidaam iyo kala dambeyn iyo nabad deegaanadan uma rabnay haddii intaasoo juhdi alla bixiyey lagu qanci waayey haddii madaxdii dalka ugu sarreysay taladeedii lagu qanci waayey haddii cid kasta waxay suubisay lagu qanci waayey haddana waxaan isniri magaaladan Baydhabo waa magaalada labaad ee Soomaaliya ugu dadka badan حمر باكدت بدن 1,500,000 oo qof baa ku nool magaalada Soomaaliyeed oo xamar ahayn oo dadkaas ay ku nool yihiin ma jirto waxa ay ku nool yihiin oo ay ku haystaan waa nabadgelyo waxa ay u yimaadeen intaas oo dad magaalada isugu yimaadeen waa nabaday soo aadeen waxay ka soo carareen colaad waxay ka soo carareen shabaab waxay ka soo carareen dhibaatada uu shabaabka ku hayo waxay u soo carareen dawladoodii waxayna ugu soo carareen inay nabadgelyo ku helaan nolol ku helaan waxbarasho ku helaan caafimaad ku helaan horumar ku helaan ay ugu soo carareen waxa aan la tacaalaynay oo ku dadaalaynay oo habeen iyo maalin ciidamada qalabka sida ay u taagnaayeen oo loo dilaayay oo meel roob ugu da'ayay oo qorrax ugu da'aysay oo magaalada afarteeda gees ugu wareegsanaayeen oo cadawga ilaalinayeen intaas ay dadkan shacabka ah oo mas'uulka ka nahay ilaahay mas'uulka nooga dhigay inta awoodaanada ah oo mas'uuliyadahooda saaran inaanan ka hakranin kuna ilaalino kuna noolaadaan inta maqanaan ugu dadaalno oo u raadino cadaalad iyo amnina ay helaan ujeedada ugu badan oo lagu dadaalay taas ah waxyaalaha marka nagu qasbay inaan hal sano hoos fiirino oo laba shay naloo maleeyo doqonnimo naloo maleeyo waa cabsadaan la yiraaho naloo goodiyo dholo tus la suubiyo wiilal yaryar oo wiilashaanada intay baakaami isku soo xiraan jidadka xiraan warar u kaadiyo waryaa islaana waryaa la hadli karo wixii intaas oo dhan loo lahaa dawlad wiilal iyo koox iyo intaba waa ka adag tahay waxay ahayd magaaladan Baydhabo xabad ka dhacday baan diideynaa hal sano intaasaan la xishoonaynay dhulka la fiirinaynay la tuugtamaynay aan u lahayn waryaa islaan ho nagala hadlo waryaa naga qaban karo dad qorshe leh ajandayaal kale siyaasadeed leh waxa aan ka hadlayno waxaan ahayn rabo nabadda aan raadinayna aanan rabin fidnada wax loogu soo sheegay dad kale wax u soo sheegeen marka waxaa la huri waayay saraakiisha amnigii bay ka shaqayn waayeen jidkii loo taagay heer waxaa la gaaray baabuurta socodka qoryaha lagu qabto la yiraahdo noqda madaxweynuhu maxaan sameeynaa la xabal lama sameyn karo soo noqda jidkii baa nagala xiray ka soo noqda jid kale ma jira kan kale oo jira mara meel heblo dhan waa la gooyay hal la gooyo meesha furan mara guri hebel iyo guri hebel iyo guri hebel baa la ijaaray oo min konton baa degan hadda ganaadeen guriga ku jireen guriga ka leexda intaas oo dhan waxa u lahayn waxay ahayd magaaladan intaan oo population dada joogan laba shay darteed horta dhagaxi kor loo tuuro dhul ma dhacay qof binaadam ku dhacay badnida dadka mid labaad magaca iyo sumcadda iyo sharafta aan haysano oo dawladnimada
iyo mas'uuliyadda naga saaran dadka inaanan facaysanin wax magaratada oonan lagu sheekaysanin magaaladii nabadda yaa dagaal ka socda intaasaan diiday intaasay ahayd intii loo samraayay loo dulqaadanayay saraakiishii ay la doqomoobeen ciidamadii ay la fulayoobeen meel ay u dhaqaaqaan la garan waayey wax la suubiyo la garan waayey maxay marka tan shalay ku dhacday markii wax walbaba aan ku dulqaadanay yaa waxaa la yidhi marka hadda maxaa noo haray waqtiga annaga baa la joogaa mashruuc la fulin karo ma jiro suuq xoolo lama dhisi karo canshuur lama qaadi karo jid lama mari karo meel la istaagi karo male see ku dhacday suuq xoolahay ka bilaabanaysaa mana la dhisaayo canshuurna lagama qaadayo ciidankii booliiska joogaa waxay yidhaaheen maxaa jiro ciidankii baa xabad lagu bilaabay laba askari oo booliis oo amniga suuqa sugaysaa labadiiba la dhaawacay warnimaya hadday saas tahay bal si kalaan raadinaynaaye u kaadiya sidii annagoo ku joognaa haddana inta la baxay oo la is aruursaday oo la hubgatay oo wixii lala soo baxay baa haddana guryihii la galay yaa jidadkii dhagaxaan lagu safay waa ogtiin qof loo sheegayo male maanta saraakiishii maxaan samaynaa naftii waxaa la yidhi col loo dooray meel u dhaantay weyse meel kaloo la aadayo ma lehee saraakiishii labay mid noqonaysaa nimankii meeshii amni daradii wixii aan amnigii aan ka shaqaynaynay intaasoo sane inaan nimankan dartood u dayno amni darro ay noqoto iyo inaan meesha uga tagna labadaas waa shaqo oo dhan waa soo xirantay saldhigii aan isla taagayn horta dhacdadii shalay dhacday taasay ku dhacday meel kaloon marnaan weyn halkaasana nin aan markhaati ka ahayn male inaan ka baaqsano laakiin waa ka baaqsan weynayoo waxaa looga baaqsan waayey waxay timid dowladnimadii in la yidhaaha maba jirto amni ma jiro cadaalad ma jirto mashruuc ma jirto shaqo ma jirto canshuur ma jirto gaadiid ma jiro in la yidhaaha iyay gaartay meeshaasaan markana gaarsiisay runtii waxaan raalli ka nahay iyo waxaan ku faraxsannahay ma aha waxa aan haynay oon ku soo dadaalaynay oon ku soo tacab iyo tiiro beelnay oon habeenii maalin u taagnayn oo intaan in ka fiican aan gaarsiino rabnay waxay ahayd horumarka iyo nabadda iyo tacliinta dadka reer koonfur galbeed say ku gaari lahaayeen haddii waxaa awalan ah amni haddaanan amni la helin oo ayna nabad imaaninna waxbarashona ma imaanayso cibaadana ma imaanayso horumarna ma imaanayo deganaashona ma jirayso qax baa lagu jirayaa sidaas darteedaan waxaan xoogga saarnay in amniga laba dhinacba lagu fiiriyo lagu haayo kii wanaag rabana wanaagga loo sheego kii raba in la qanciyo kii wax tabanayo raalli ahow la yidhaaho kii ka soo darana dee ciidamada amniga ay gacan bira ku qabtaan intaas waa intaan waxaan ku soo gaarnay asadka aan haynina taasay ahayd marka aad iyo aadaan uga xunnahay sida ay shalay wax u dhaceen shaydaan baa ka taliyey waxaas aan sheegnay oon tabarta u weynay baana ka taliyey ilaahaygii naga soo dhameeyey baa mahadda iskale intii dhimatay allah u naxariisto samri iimaan allah naga siiyo waxa ku dhintay xaggaba ciidamadii wiilashaanada ahaabay ahaayeen waa kaa dhimay kugu dhimay waayo kan maskaxda laga duursaday oo dadkiisii iyo deegaankiisii iyo dowladdiisii cadow looga dhigay oo beenta loo sheegay oo la yidhi haddii aad kuwaan ciirisa adaa madax noqonaysid oo la soo siray maskaxda laga qalday wiilashaanadii waayo raggii shalayto dowladnimada usoo halgamaayo deegaanka usoo halgamaayo nala dhashay waayo waa kugu dhimay kaa dhimay waayo labadaba kuwa anagi waayo kuwa dowladnimada difaacayay oo nidaamka ilaalinayay oo sharciyadda u dhintayna aygana dowladnimaday u dhinteen waa kuwa anagi intaba allah u naxariista dadka shacabka soomaaliyeed oo reer koonfur galbeed oo baydhabo joogay oo ay waxgaareen daruuftaasaa gaarsiisay inay waxgaaraanna maana rabin horaan u sheegnay ayagana allaha caafiyo dadka dhaawaca ugu boogadhayo caafimaad khayr allah siiyo waxaan samaynay dadaal tiro badan oo isbitaallada dhan la soo maray aan fiirinaynay ciidamada saamaynteeda wixii ka zaa'id ah
oo shacabka ku dhacay taqaatiirtii isbitaalada iyo informationka ugu dambeeyay oo nala soo siiyay wuxuu ahaa wax shacab ah inay laba qof yar iyo gabar yaa ilaa haddeertaan ku dhintay shacab kaloo dhintay male dad dhaawac ah oo firir guryahooda ugu tagay oo dhaawac sahlan ah waa jiraa oo badan oo uu ka mid yahay wasiirka anaga maaliyadda oo gurigiisa soo joogo ay ugu tagtay dhaawacyo saasoo kale ah shacabku waa qabaan ciidamada waayo dadka dhaawaca iyo dhimashadaba qabo marka ayagana ilaahay ha u booqadhayo ilaahay ha caafiyo dadka shacabkana allah ha caafiyo mas-uuliyadana saaran oo mas-uuliyad wadareedka ah oo dadka reer koonfur galbeed oo dhan saaran oo waajibaadka ka ah waxaa weeye inaan fidnada iska ilaalino fidno waxay taraysa male fidno nin wax ku helaayo male ninka leh fidnaa xil ku helaysaa fidno xilna laguma helo xoolana laguma helo aakharana laguma helo adduunyana laguma helo adduunye beel iyo aakhira beel baa laga qaadaa wax laga qaada male wiil la'aan iyo walaal la'aana laga qaadaa wax laga qaada male wixii ilaahay kuu soo qoray adoonan walaalkaa dilin oo walaashaa qaxinin oon dhibaato suubinin yuu ilaahay ku siinaa wixii samaan lagu waayana xumaan laguma helo war ninka wax rabow wanaag ku raadi wanaagay ku fiicanta baashee war ninka wax rabow wax reebo oo iimaanka allah kugu sugo dadka walaalaha ah oo fidnada ah ku wadid fidnada ka dhaaf waxaa soo socoto bil barakaysan dadka reer koonfur galbeed gaar ahaan dadka magaalada baydhabo jooga oo tirada intaas la eg oo amniga ku nool waxaa jira saraakiil iyo ciidan qaran oo ciidamada qalabka sida oo dhan oo isku jira oo habeen iyo maalin u taagan amnigooda war kan fidnada wado oo ama ciidanka ka soo baxay ama meel kale laga soo safriyey oo wax kale oo waxa aad aaminsantihiin maahan wax kale aaminsan oo guryihiina ijaaranaya oo la intaan ku dagaalamayna carruurtiina dhexdeeda iska diida waraa gurigayga iga baxda aniga dagaal ma rabin nabadaan rabaayo ciidamada amniga u soo sheega waa kii tuugaha intuu soo galay gurigaanu raba inuu ijaartay waa ka diiday guri kaluu ijaartay waa ka diiday shacabka intaasaa laga rabaa amniga qaybtooda inay ka qaataan dadkan mas-uuliyiinta kale oo dowladda iyo waxgaradka iyo aqoon-yahaanka iyo odayaasha dhaqankana waxaa laga rabaa inay mas-uuliyaddooda qaybtooda ka qaataan ummadda nabadda kala shaqeeyaan horumarka kala shaqeeyaan wanaagga kala shaqeeyaan qof allaaliya qofkii muwaadin ah oo reer koonfur galbeeda oo wanaag rabo waa rabnaa waa soo dhawaynaynaa qof la diidan yahay ma jirto qof la necab yahay ma jirto qof qalabuu galay ha la sii fogeeye la leeyahay ma jirto cafullaahi camaa salaf nin walbaba wuxuu samaystay isaga ilaahayiisa laakiin annaga ilaahay dartiisa dadkaana mas-uuliyad naga saaran tahay qof kasta oo reer koonfur galbeeda cafi iyo masaamixuu naga yahay walaalkaa naga waaye ha noo soo dhowaado ha nala joogo reer koonfur galbeedaan nahay koonfur galbeed aniga malihii mas-uuliyaddaana ilaahay nasiibkayga ka dhigay maalintuu ilaahay ii qoraan ka tagaayaa si nabadaana uga tagaaya hadduu ilaahay ii qoray dadkan inaan u adeego oon u sii joogana waa sii joogayaa waa sii adeegayaa wanaaggii aan qabtay baan sii badinayaa wax kale dan kale oon ka leeyahay ma lahan marka walaalayaal dadka reer koonfur galbeed oo si xun wax u sheega ah waxaa la yidhahaa si xun wax u sheeg sixir ka daran oo fidno sheega ah oo mikrofoonada haysta oo beenta sheegaayo oo meelahaas ka soo hadlaayo oo suurka gedinaayo oo waxaan jirin sheegaayo waxaa la yidhaahaa nimaanan kuu furaynin yuusan kuu rarayn waxba nooma hayaan waxba nooma taraayaan waxaan nagu dhacay maanta waxba kama galaan hal xaboo baaristamool ma soo dhiibayan intaasay ka rabaan mikrofoonka ay istaageenay ka rabaan baaristamool xanu baabiye qofkoo hala sii hataa ma dhahayaan fidnadaasay ka rabaan kuwaas ayaga ah ilaahay baa naga qabanaya laakiinse annagaa la rabaa inaan iska qabanno ayagana ilaahay ha soo hanuuniyo dadkoodii iyo deegaankoodana ha u tureen iimaankoodana ha sugteen intaasaan rabay inaan isku buraarajinno inaan amniga ka wada shaqayno inaan nabadda ka wada shaqayno inaan walaaltinimada ka wada shaqayno inaan midnimada iyo dowladnimada ka wada shaqayno inaan garab istaagno ciidamada qalabka sido iyo madaxdooda habeen iyo maalin u taagan u dhafraayo u dhimanaayo siday dadkaan nabad ugu noolaan lahaayeen inaan gacan ku siino oon la shaqayno
wixii fidna wadana aan iska qabanno intaas kadib waxaa lagu jiray bishii shacbaanna waa gabagabo ramadaan baa soo dhow isbuuc jimcihii ka horreeyey waxaan ka hadlaynay sidii la isu kaalmayn lahaa arrimahan abaaraha iyo duruuftan adagoo jirto dadka wixii la istari kara la isu tari lahaa iyo ahayd waxaan ka hadlaynay jimcihii ka horreeyey iyo sidii la isu kaalmayn lahaa la isu garab istaagi lahaa ayadoo duruuftaas adag ay jirto oon gurmad ku maqannahay oo dhaqaale aruurin lagu jiro oo biyo dhaamin lagu jiro oo raashingad lagu jiro oo qaylo dhaan lagu jiraa fidnadan nagula soo dhex tuuray howshii ayada ahayd oo gurmadka ahayd oo dhaqaale aruurinta ahayd oo istaakulaynta ahayd oo wax istarka lahayd waa sii laba jibaaraynaa dadka walaalaha ah oo aan waxaysanin gurmadkii sidii baan u wadaynaa waa isu gurmanaynaa waan istaakulaynaynaa waxaa soo gelayso hadduu ilaahay yidhaaha bishii ramadaan nabadii caafimaad allaha nuu gaarsiiyo bil khayra oo bil cibaado ah waaye inaan isu naxariisanno wax istarno wanaag isfarno maxay ahaydee nin walbaba ninka kale wuxuu dhaamo uu taro khayr aan ka wada shaqayno yaan isfaraynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aada iyo aad baa u mahadsantihiin